الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya baa leeyahay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir maaha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwaana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinaya haddana uu la tegayaa uu ka soo celinaya kaa salaada intuu la yimid in ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaane awliyada istaciinuu bisabri wasalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ceedceedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey haddii masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaara loo jideeyey istaciinuu bisabri wasalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxehan ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaalla saddex baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa wixii uduge udgoon والنساء يا هوينكنا والله جعليسيي وجعلت قرة عيني في الصلاة هل كان عندها يجي قلبي كوكو قبو بيانا صلاة الله يلي النبي عليه الصلاة والسلام مركز صحابة رسولك صلاة سيبرتين يكو إن صلاة كرة حيستان إن صلاة أي النقطة ما المركز صلاة أي حدان الدنيا بأي كتجان من علماء السلف كمدها يا مرة اللي مركز صلاة حدو ثابت البناني بالرجل أبو مسلم رحمه الله وعلقوا الصلاة أنا تكنيسد أنا كوان لا نسيت كويس هذا صلاة مر اللي مرقوا صلاة تكني للمرأة كذا هذا ناس وحيل كابت من أجل الصلاة ل20 سنة وتنعمت بها 20 سنة بويري صلاة الروح ده بدن كيجا حقيقة ده إن قالوا لبعض سنة أيام الصوت تبعي بنص دلالي هذا لبعض سنة وكل راح يستقبل الصلاة داس كيفية الصلاة هذا تكتنوشك بالغيري ويقول إنما يهونو صفقة مركا عن قلب ولا إمامك عن قداشي سيستاجن صلاة حرنا أيو وحن استحضار أن كل صوح حاضر صلاة قلبي جيجا يوم يقوم الناس لرب العالمين وحن كالسوق على صفقة المسجد كأنجو جينو يهكي محشر كبنك قيامة هل كاسر مركا كحدا بودي صلاة إن إله يرتاجن هاي بصوح حاضرية اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابد سي واحد أديكو أدو جيدو أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا يساقكو أركايا وحولي مركا وحن كفكرا مركا صلاة دحديدة كي حق مدق إيجي حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري حسابتا لغو يري صدقا هذانا كي بدحدي إيجي حقي والله قاضي كي يقدم بيي والله قاضي كي يقهر ريي والله قاضي waxay salaadu ii dhamaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baan salaadeeda ku dhamaystaa buu yiri ay reisli ninkuna dareenka ku dhamaysataa masaajid annagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين والركعات دي إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكو جرى صفقة هوري
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo walla bilaabnu midhaadna walla waa ku darragu laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligeen gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا لقو بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يري رسولك انت قفك مؤمنك اجشو ايسن كو ايمن اسغا دمشدا و ديار من منا لا يكره الموت كما انت مسلمين تا نولش يا غيريدا نولش جعل اشياء ماتريالك يا لعقته يا عملك الصالحه qalbigeenu haday dhibaato ay nagu timaado wuxuu u iilanaya lacagtu u iilanaya wuxuu lacag hadaad hayso mashaakilka way xalismaysaa خالق يا مخلوق انا ما انت umadu way kala garan laadahayba خالق يا مخلوق ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaqiisa mooyane waa meesha ilaahay adoonka uu ka fiiriyo rasuulku qalbigu علينا ان نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو شقد هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكل ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله من الربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaan waa xubinta kaliya jirka la sheegay inay kaliya tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso kaliyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid kaliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta kaliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك هدي حقاقت جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عسياقي سكو دعي مرنا إلهي إني عاصيان وأدكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهيني وحي الربان بي قبانيان لغهيني ميشي الربان بي آذيان دقالهيني ميشي الربنا كو بحينينا هذا الكيني ميشي وحان دوناكو هاللينا وحان دون حسن البصري رحمه الله يا يري صدن سنة من قسل أفرتن سنة من كفتمن وحان سوغاري الرق يا أقوام وحان سوغاري أن مركان لجوغو عن اسكو مليني إن أنا نقول عن اسكو مليني وإمامك وخير التابعين ويان وعالمك تابعين توقو علم البناء ويان وحا هذا الكالي صدن سنة من قسل بويري أفرتن سنة هذا الكفتما إقام الصوبحين waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anu aan isku malaynay inaan ahay tuub waa xasan albasri ninka sadaaqay hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaada maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي أمركيس إلالي أذيك إلهي باكو إلالين
nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalina innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratulmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leehay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahe xay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey xay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyaa kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaasana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay